السلام عليكم. هذا لما يدور صعدان اللي سوقته ظروف هذا صوت ويقوم السيا كلي أنا ما كنت أبغى عبان ما أنت بايدا بايدا صار شيء وكم أغلى لكن وحاول مودا ويفهم كانوا راني أحرق دقيقة كوشرة يا كردين ودليل كذي أطلع وهي وحوايا أودا لما جبوتها ولصتها وأنت لا جبوت شفتها لصعنا marka kulay habeen dawad waa la socotaa leefan soo galay ma garanaysa cafis waa soo dalbaday leefkiga maadaran ma daawada anigu ma daawado qadaaya kayga soo gala okay dhimale marka kulay waxa weeye waxna loo soo gudbiyay loo amba been ha noqoto amba run ha noqoto wax aniga kulay shakhsi ahaantayda laysoo gudbiyay bay ahaayeen ana ka toobad keenay ana dib inta aan isku buuxay aan isku dhiman baan sidii bal waxaad samaysaa qofka bini'aadamka saasaan qoraalkiina ma arko laakiin wuxuu sheegay qof haya oo la soo istaagaya maanta dhahaya ma garanaysaa waxbaa la qashay amba waxbaa sidana ma jirto marka abaayadana maanta way la soo hadashay hore iigu saf garaysnayd in badan baan wada hadlayna dood dheer waana dhex martay kolley waxaana ii sheegtay maxaa la dhahaa inaad wada hadashaan xiriir dhow leedihiin alasha inaad say ku aaminaysaa bay tiri moogta ankur ayada u taala hadday aamini weyda anigu qof go-aan laha baan ahay baraha bulshada saan uu soo galay anigu yiri walaashay cafis baan ka dalbaday ayaan imakana u taaganahay ma fahamti okay adigu laba afar ku hadlaysa walaa ma fahamtay marna waxaa leedahay run iyo been ma og waxaa la sheegay inay u gudban yihiin marka kalena waxaa leedahay maxaa lagu dhahaa ii sheega waxaa beenga lama kiiska laba ah kiiskanaan kuleeyahay run iyo been kiis mid weeyaan 4 jeer baan ka hadlay mar waxa weeye inantii yarayda ladna oo reer jarmal ahayd oo markii horena noo soo gudbisay oo qoraalkaad dhaafsateen fiidiyowga warqadaha caddeynta labada warqadood oo halka warqad ah oo labada page ah noo soo dirtay markii dambe lacagtii u aruurinay cabdixakiin ugu aruurino loo shubayna tiri haddana weliba anigii aynamay soo xidhiideen hablo kale inta la xidhiidhay ku tiri maxaa la dhahaa lacagtaas dowladda iga cafisay dowladda jeera looyar loo qabsado maxkamad la maro cid dheeldheelix ku afinaysa ma jirto markaas kiiskaas runya been ayuu u dhexeeyay wogta waa waxyaabaha anigu kow saska ka qaaday noqoto talabaad maxaa la dhahaye kiiskaas run ah marka talabaad cadeen ma hayo maanta iyo malakhira lama soo fadhiisinayo laakiin maana ku saxnayn Soomaaliyeed ani ma gabado sida publicadan u hadla markaste waxay tiri adiga laba kala codlaynaya waxaad leedahay marna kiisku waxba kugu ma hayo marna waxaad leedahay waxba runka hayo kii aan dadka soo qabsatay wax run u ahaa ay dadka lacagta ka dhacday inta yar laakiin kii waxba dad qalatay cadeen kugu hayo ma gabadaan kiisaskan kale oo maamooyinka ay cabanayeen fiidiyowgii ay wareysatay markaan ka soo qaado andaaro ayagiiba hadlayay marka muhiimaddu waxay tahay waxaan anigu shakhsi ahaan waa waxaana laga dhaadhiciyey anagoo dhawinaada muhiimaddu waa taas wax jira inaysan ahayn hadda la ogaaday marka muhiimaddu waxay tahay ani xamdi ahaan xamdi waxay kusoo baraarugtay waxaan jirin inay yihiin oo lasoo dhiibay oo lasoo abuuray ayna faraha ka qaado ayna cafis ku weydiisato sidaasna aan u kala raalli ahaataan anna waxaa iri maadaama barihii bulshada dhexdeeda aan ka tiri in life lasoo galo oo xanaan maxaa la yidhahdaa ay soo qabsato ay soo qabsato halkaas ay cafis maxaa la yidhahdaa waxayna ay akiid uga sii dhigto ilaahayna wax sal iyo raac toona lahayn ay ahaayeen sidaasay aanu diyaar u wada nahay hadda hal abaay raalli ma tahay inaad soo qabsato lifeka abaay xamdi go ahead okay maxaad ku aragtaan inanta waa u sii jilcisay xamdi arrintii waxay u fahantay inay ma garanaysaa barihii bulshada wixii la isdhex mariyay inay been tahay xamdi waxay go'aansatay inay arrintii faraha ka qaado oo ay xamdi cafis ku weydiisto xamdi hana diyaar ma u tahay inay xamdi leef soo gasho oo aad bartaa hawshii kala qayb qaatid yes go ahead bay tiri haye anigu waan fahansan